رئيس الوزراء حكومة فدرالك الصومالية مدن حسن على قير وهليان وزيرك أمنية جودها وزير الرياضة سبورتيغا قدوميها قبل كبنادر أهنا دوقة مقالة مقدشو يتليها عيدا كنبا سوقدي سردون كقرنكا أي عاو مقرب نبدي كلا أفري ودوين كمقالة مقدشو عيدا ككوجرا هولقلك حسلينتا مقالة مقدشو سيقولي رجليان هولقلك وناكسنا يهيان لسلامار كان لوغو موجين مدحد الدولة أي قرب تاقيهين عيدا كا وزير الرياضة سبورتيغا حكومة فدرالك الصومالية مروو خديجة محمد ديرية oo samaysay Afrika iyo wasiirka amniga gudaha gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho ayaa wadooyinka ugu qeybiyay raashin ka hor Afrika ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Xasan Cali Khayre iyo mas'uuliyiinta kale ka tirsanaa dawladda ayaa si caadi ah u afray askarta iyagoo aad ugu faraxsanaa inay arkaan madaxda dawladda oo wadooyinka ay ka wadaan howlgalka kula afuraya wasiirka dhalinyarada Marwo Khadiija Maxamed Diiriye iyo wasiirka amniga gudaha Maxamed Abuukar Islow ayaa sheegay in Afrikaan caawa ay la afureen ciidanka qaranka ay qayb ka tahay amarka ra'iisul wasaaraha ee la xiriira dhiirigelinta ciidanka qaranka inaan bilowno inaan la qaybsanno ciidamadeena oo dhanno geeshkayagow garabkiinaan taaganay geeshkayagow guuleysta annaga saasaan u soo baxnay afurka marka meel kasta ciidamada joogaan caawaan bilownay xukuumadda waa nalku amray waa fulinaynaa waa ku dhiiranaynaa in fursadda ilaahna siiyay inaan ku afurno ciidamadeena qalabka sidoo aan la afurno aan ku afurno meel banaan ah saan hore u balan qaadnay ra'iisul wasaaraha iyo madaxweynaha hore u balan qaadeen inaan guryaha ku jiri doonin aan ciidamada la qaybsano dhibkay qabaan marka balanta waa ka soo baxnay Allah waxaan ka baryaynaa inta dham ilaah nagu waafajiyo wasiiradeen way mahadsan tahay Khadiija Maxamed Diiriye sidoo kale wasiir ku-xigeenka Axmed Cumar Islow mahadsan yahay ee Afrikaan noo soo sameeyeen maanta aad iyo aad ugu mahadcelinaynaa mudan ra'iisul wasaare saan hore u balqadna amniga markaan ka shaqeynaa guryaheena joogi doono waa naga dhab waa naga balan ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Xasan Cali Khayre oo la hadlay askarta oo la afray ayaa tilmaamay in xukuumadda ay ka go'an tahay dhiirigelinta iyo sare u qaadista moraalka ciidanka si ay ugu guuleystaan xasilinta amniga guud ee dalka gaar ahaan magaalada Muqdisho waxaan aad ugu faraxsanahay inaan caawa idin nimid oo idin la afurnay in iyadoo ay Ramadaan tahay oo aad ogtihiin taariikhda magaalada Muqdisho aan jidadka magaalada Muqdisho banaanka meel kamid ah aan ku afurayno annagoo madaxda qaranka ah waa runtii wax Ilaahay loogu mahadnaqo shacabka Soomaaliyeed fadlan la shaqeeya ciidamada qalabka sida soo sheega meeshii aad wax ka dareentaan ciidamadana waxaan leeyahay amniga waxaad sugaysaan waa dadkiina waa shacabkiina marka aad shacabka guryahooda tageysaan aad ha loo ixtiraamo laakiin dadka Soomaaliyeed kulligeen waxaa nagu waajiba inaan jid walba u soo baxno inaan ciidamada la afurno inaan garab istaagno inaan markay socdaan biyaha iyo caanaha ka daba qaadno sababtoo ah amni la'aan waa horumar la'aan inta kadib ayaa ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya mas'uuliyiinta la socday waxa ay socod dheer oo lug ah ku soo mareen oo ay ka soo bilaabeen wadada Taleex ee degmada Hodan iyagoo ku tagay Hotel Jazeera ee degmada Wadajir iyo qaybo kamid ah degmada waa bari ee magaalada Muqdisho waxayna u kuurgalayeen sida u socdo howlgalka xasilinta magaalada Muqdisho iyagoo dadka ku ganacsanaya wadada laamiga weydiinaya xaaladooda amni iyo sida ugu faraxsan yihiin howlgalkan ka socda magaalada Muqdisho ee lagu xasilinayo ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya mas'uuliyiinta la socday ayaa kormeerka ay ku sameeyeen wadooyinka ay ka socdaan howlgalka kadib waxa ay kula caweeyeen qaar kamid ah muwaadiniinta Soomaaliyeed ee ku sugnaa hoteelada ku yaala magaalada Muqdisho iyagoo weydiinayay talooyinka iyo tabashooyinka ay u hayaan dawladda afrintan iyo kormeerkan caawa ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya mas'uuliyiinta ka tirsan dawladda ay ku sameeyeen wadooyinka muhiimka ah ee magaalada Muqdisho ayaa qayb ka ah qorshaha lagu xasilinayo amniga magaalada Muqdisho isla markaana sare loogu qaadayo moraalka ciidanka geesiyaasha ee ku howlan sugidda amniga magaalada Muqdisho Nasr Bashiir Cali warbaahinta qaranka magaalada Muqdisho